kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale iyo barnaamijkeena falaqaynta wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda halka nagala socotaan waa warbaahinta caalamiga ee Horfadhi Media. Qodobada ugu waaweyn wararka aad maanta ku daawan doontaan waxaa kamid ah magaalada Sochi ee xeebta ku taala badda madow waxaa ka soconaya shir oo halkaasi ay isugu yimaadeen dalalka Turkiga, Ruushka, Iran iyo xukuumadda Syria iyo mucaaradkeeda oo kaga qayb galaya shirkaasi sidii loo soo gabagabay lahaa xiisabta dalkaasi Syria ee xalka loo leeyahay. Qodobada kale daawadayaal ku maqli doontaan warbaahinta Horfadhi Media iyo wararkeena iyo caalamka waxa kamid ah madaxweynaha aan la maraysan karin ee dalkaasi Mareykanka Mr. Trump oo ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweyne Xasan Rouhani haddii uu sidaas doonayo ayuu sheegay. Guddiga amniga qaranka dalkaasi Turkiga waxay shir degdeg ah ka yeesheen hanjabaadaha iyo hadalladii adkaa ee ka soo duulay dalkaasi Mareykanka. Dalka Hindiya ayaa ku biiraya ololaha dalalka Asia ee sida weyn oo diriraya dadka muslimiinta ay dalalkooda ku dhaqan. dalka Zimbabwe doorashadiisii qodobadaas iyo kuwa kale ku maqli doontaan sidoo kale warar waqooyi Kuuriya ka soo kordhay ayaan idin haynaaya. Dabcan waa 31 July maalinimo saalisa ama talaado 2018 kol kale barnaamijkeeni falaqaynta wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain ama xogayaha arrimaha dibadda Britain oo ku sugan dalka Shiinaha Jeremy Hunt ayaa waxa uu ka soo yeeray hadal markaasi gif ku ah dadka Shiinaha kaasoo warbaahinta dalkaasi Shiinuhu ay aad u qaada dhigaya. inkastoo hadalka marka la eego uusan ahayn mid sidaas u sii buuran marka laga hadlayo markaasi sida Soomaalidu ay dabcan wax u qiimeyso uusan ahayn hadal saasi u sii weyn ama u sii salbalaaran haddana dalka Shiinaha ayaa wuxuu noqday hadalkaasi mid soo jiitay bulshada dalkaasi Shiinaha oo dhan isla markaana ay si weyn uga doodeen ogana hadleen wasiirkana lagu cambaareeyay. Wasiirka oo ka qayb galayay isla markaana kulan lahaa dhigiisa dalkaasi Shiinaha Wang Yi ayaa wuxuu doonayay inuu tafaasiil ka bixiyo oo markaasi uu sheego sida uu doonayo inuu xiriirka Shiinaha iyo Britain hagaajiyo. Hase yeeshee intii uu arrinta ku dhex jiray ayaa waxa ka soo fakatay hadal markaasi meel ka dhac ay u arkay bulshada Shiinuhu inkastoo dadkii goobta fadhiyay Israakiisha ahaa aysan wax weyn u arag. Ninkan waa Jeremy Hunt wuxuu qabaa gabadh ka soo jeeda Shiinaha hase yeeshee wuxuu doonayay inuu markaasi tafaasiil ka bixiyo isagoo doonaya inuu soo jiito Shiinaha oo hadeerta noqonaya dalka adduunka ugu turturdharoon dhinaca dhaqaalaha ayuu wuxuu yiri sidaad ogtihiin xaaskaygu waa Japanese halka markuu marayay buu maya waan khalday waa Chinese baan ka wada xaaskaygu inay tahay carruurtayduna sida daraadeed waxay noqonayaan qayb ahaan ama haaf ahaan Chinese qosol ayaa isqabsaday markaasi fadhigii wuxuu codsaday oo qolihii kaamirada duubaya ka codsaday in ay kaamirada intaasi ku celiyaan ama ay ka jaraan hase yeeshee ma aysan sameyn sidaasi klibkiina uu baxay taasna waxay dhalisay in bulshada dalkaasi oo Shiinaha iyo Japanna aad bay isku necab yihiin dagaalkii koobaad adduunka iyo kii labaad adduunkana iyo waliba dhowr dagaal oo kale ayaa dhex maray ciidamadii awoodda badnaa ee boqortooyadii Japanese-kuna waxay in badan cagta mariyeen oo dhagta dhiigga u dareen malaayiin Shiinaysa waxaana dabcan labadaasi dal ay markaasi ka dhaxaysa cadaawad guun ah. Shiinaha oo hadeerto ka turturroon Japanka kadib markii Japanka hubka laga dhigay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa wuxuu ka qabsaday Japanese-ka dhowr markaasi goobood oo ay markaasi dabcan meelaha loo yaqaano jasiiradaha markaasi badaha waxa markaasi arrintaasi dadka arrimaha bulshadu ay sheegeen inay taasi meel ka dhac ku tahay maadaama uu gabadha ama xaaskiisa uu ku sheegay inay tahay Japanese iyadoo Shiina ah markaasi dadka reer Shiina ayaa aad u qoonsaday hadalkaasi waxayna runtii u arkaan in wasiirku ay ahayd inuu qaybo meesha ay ka soo jeedo haweenaydiisu ama xaaskiisa uu qabo. halkan nagala socotaan waa Horfadhi Media iyo wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh dabcanna wali wararkii warbixinaha dhinaca baynu bartanka kaga jirnaayay haatanna dalka Turkiga. Guddiga amniga qaranka ee dalkaasi Turkiga ayaa shirkii ugu horeeyay ee madaxweynaha la doortay dhawaan Recep Tayyip Erdogan uu gudoomiyo waxay ku yeesheen magaalada Istanbul ay magaalada Ankara ee xarunta dalkaasi Turkiga. shirkan oo la yiraahdo guddiga la yiraahdo Turkish National Security Council ama MGK ay yeesheen ayaa waxa looga wada hadlay ama arrimaha looga hadlay ugu weynaa hanjabaad iyo cagajugleen ka soo yeedhay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Mareykanka oo sheegay in Mareykanku haddii uusan soo daynin Turkiga wadaadka ku xiran dalkaasi Turkiga ay baabi'i doonaan taasoo loo qaatay hanjabaad dhaba marka ay timaado dalka Turkiga oo aan ahayn koob markaasi kaftan geliya amnigooda qaranka. guddiga ayaa kulankii ay yeesheen waxa ay xog kaga dhageysteen saraakiisha dhinaca wardoonka mukhaabaraadka iyo dabcan waxa la yiri kuwa kale dhinaca istiraatiijiyadda u qaabsan ciidamada militariga iyo ciidamada mukhaabaraadka raadiye dalkaasi Turkiga waxaana la isla qaatay baa la yiri
oo markaasi go-aanka ka soo baxay uu noqday in hadalka ka soo yeedhay ama hanjabaadda ka soo yeedhay Mareykanku ay tahay baa leeyahay mid dhaawac weyn u geysan karta xiriirka labada dal. waxaa war qoraal ah oo ka soo baxay kulanka guud ee guddiga amniga qaranka Mareykanka ee Turkigu ay ka yeesheen arrinta Mareykanka ay sheegeen in hadalladaasi aysan hayn oo kaliya kuwo ay dhaheen baa leeyahay dad meeqaam hoose jooga balse ay saraakiisha ugu sarsareysa oo ku jiro madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ka soo yeedhay sida daradeedna ay tahay mid wiiqaysa baa leeyahay xushmadii iyo waxaa leeyahay taxaalufkii u dhaxeeyay labada dal. waxayna dowladda dalkaasi Turkigu amar ku bixisay in kor loo qaado la socoshada orahayada baa leeyahay Mareykanka. guddigu waxay sidoo kale walaac ka muujiyeen ololaha ay ka wadaan Congress-ka baa leeyahay xubno ka tirsan siyaasiyiinta Mareykanka oo ay doonayaan in ay ku joojiyaan soo daabulida diyaaradda loo yaqaano F-35 ee ah tan dagaalka ee ugu casrisan dunida, taasoo haatan ay Mareykanka iyo Turkiga ay ku heshiiyeen inay kala gataan. waxaa labada dal ee xiriirkooda uu sii adkaaday tan iyo markii 2 maalmood ka hor dalkaasi Turkigu ay wadaad la yiraahdo Andrew Person oo isagu lagu xukumay markii hore muddo 15 sano la doonayay in lagu xukumo lagu xidhay xabsi guri kadib markii jeelka laga soo daayay, taasoo ka cadaysay saraakiisha Mareykanka oo taa ka jawaabaya ayaa sheegay in Turkigu uu mutayso doono waxay ugu yeedheen ciqaab adag iyo tallaabooyin majaxanimo ah. hase yeeshee arrintaas ayaa waxay anfariir ka dhalisay labada dal oo aan ilaa xad isgaarsiin hanjabaada noocaas oo kale ah. labada ciidan ee labada dal ayaa sidoo kale waxay rondooyin ka sameeyaan magaalada Manbij ee waqooyiga dalkaasi Syria oo ay isku raaceen inay si guud u wada ilaaliyaan. waxaa sidoo kale la filayay in toddobaadyada xiriirka labada dal ay hagaagaan, balse cirka ayaa arrinta isku sii shareertay. guddiga amniga qaranka sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen in kooxda loo yaqaan PKK iyo kooxda kale loo yaqaan Gulenist Terror Group ama FETÖ loo soo gaabiyo ee wadaadka xukuma u fadhiyo dalka Mareykanka gobolka Pennsylvania iyo sidoo kale waxaa la yiri kuwa loo yaqaan YPG ee area-ka ah in dhamaantood il gaar ah lagu hayo, waxaana la amray in kor loo qaado baa la yiri wax soo saarka qalabka baa la yiri difaaca iyo warshadaha difaaca ee dalkaasi Turkigu ay laba jabaaraan baahi si ay u dhimaan baa leeyahay baahida ay uga baahan yihiin dibadda inay wax ka soo gataan. guddiga amniga qaranka sidoo kale waxay ka doodeen in la kordhiyo miisaaniyadda ciidanka qalabka sida iyo tan markaasi mukhaabaraadka si loo helo baa leeyahay xogo hordhaca ka hor inta aan ficilo ka dhanan qaranka uusan imaaninba. waxaa dowladda dalkaasi Turkiga ay raadinaysaa markaasi awood lixaad leh inay muujiso sanadaha soo socda iyadoo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan uu wacd ku maray inuu Turkiga ka dhigi doono mid lafdhabar u ah dunida oo dhan gaar ahaan tan caalamka islaamka. halkaad nagala socotaan waa Horfadhi Media, wararkii iyo warbixinihii baan daawadayaal aan bartanka kaga jirnaa. Mareykanka intayna ka bixin warkiisa xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in go'aanka madaxweyne Trump uu kaga baxay heshiiska suuqa ganacsiga ee Trans-Pacific aysan ka dhignayn in Mareykanku uu yareynayo doorkii dhaqaale ee ku lahaa qaaradda Asia. Mr. Pompeo ayaa mar uu ka hadlayay arrintaas inta aanu ka ambabixin dalalka Malaysia, Singapore iyo Indonesia. wuxuu sheegay in Mareykanku uu wado qorshe uu ku doonayo inuu ku maalgashado gobolka dhaqaale ka badan $100 bilyan. wuxuu intaa ku daray in shirkadaha Mareykanka laga leeyahay lagu dhiirigelinayo heshiisyo laba geesoodka oo ay la galaan wadamada qaaradda Asia. wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale digniin u diray dalka Shiinaha oo xifaaltan ganacsi uu kala dhaxeeyo Mareykanka oo u arka in markaasi uu ka faa'iideysanayo kabixitaanka Mareykanka uu ka baxay heshiiskaasi. xukuumadda Washington ee uu hogaamiyo madaxweyne Trump ayaa horey uga baxday suuqa ganacsiga TPP. waxaa iminka ay u muuqataa in Mareykanka uu weli doonayo inuu ku sii nagaado ama ka sii mid ahado suuqa ganacsiga ee qaaradda Asia walow ka hore uga siibtay. dalalka midowga Yurub, Shiinaha, Canada, Japan iyo kuwa kale ayaa dhawaan waxay si weyn uga gilgisheen go'aamada Mareykanka uu doonayo inuu cashuuraad dheeraad ah alaabahooda dusha kaga saaro. dalalka Mareykanka iyo dalalka qaaradda Yurub ayaa doonayay in isku soo dhawaadaan, hase yeeshee taas ayaa burburtay kadib markii Trump uu hadal ka soo daba tuuray madaxa golaha midowga Yurub oo isagu raadinayay xalka madamayso arrintaas laga gaaro. madaxweyne Donald Trump ayaa ku goodinayay in uu la dagaalami doono dhaqaalaha la lunsanayo ee Mareykanka. waxaana ilaa hadda intuu xilka qabtay madaxweyne Trump dhaqaalaha Mareykanka uu yahay mid wanaagsan iyadoo uu kor u kacayo wax soo saarka Mareykanka, halka sidoo kale kor loo qaaday miisaaniyadda guud ee dalka Mareykanka dawladdiisu isticmaasho gaar ahaan gaashaandhigga. Mr. Trump ayaa sheegay in horey Mareykanka looga faa'iideysan jiray marka loo eego waxa uu dhoofiyay iyo wax loo soo dhoofiyaana ay badnaayeen kol walba waxa laga faa'iido Mareykanka. waa sida uu madaxweyne Donald Trump uu aaminsan yahay ama uu sheegay. daawadayaasha qiimaha leh, halkaad nagala socotaan Horfadhi Media ee haatanna Iran iyo Mareykanka. madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump horey ayaynu in badan u sheegnay madaxweyne Donald Trump inuu yahay nin markaasi go'aan kasta bedela
isla markaana tallaabo kasta uu jecel yahay markay madaxiisa ku soo dhacdo ama su'aal laga weydiiyo ku markaasi Trump ayaa wuxuu ku dhawaaqay in uu markii ugu horeysay inuu diyaar u yahay kulan aan shuruud lagu xidhin oo la yeesho Xasan Rouhaniga Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran madaxweynaha ka isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ku soo dhaweeyay oo si wada jira u qabteen isaga iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Talyaaniga Giuseppe Conte ayuu wuxuu sheegay in uu doonayo inuu la kulmo madaxweyne Xasan Rouhani haddii uu sida asagu rabo wariye ayaa weydiiyay in uu doonayo in uu mar uu ka hadlay arinta Iran oo uu ku tiqtiqsaday isla markaana uu sheegay in sababta uga baxay ay tahay in Iran ay bursatay heshiiska ayaa wariye wuxuu u hosgeliyay su'aal ah in uu bal diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweynaha dalkaasi Iran haddii uu markaasi doonayo in wada hadal diblomaasiyad arinta lagu dhameeyo wuxuu yiri waan la kulmi waxaan waliba ola kulmayaa sida ayagu ay doonayaan iyo halka ay doonayaan ma aqaano inuu isagu diyaar u yahay wali hase yeeshee Iran dealkii lala galay heshiiskii lala galay wuxuu ahaa mid xun sida daraadeed waxaan aaminsanahay inuu ahaa in la dhameeyo ama la soo afjaro balse wali waxaan aaminsanahay in aan diyaar u ahay wada hadal iyo kulan waqti kasta iyo goor kasta iyo goob kasta ayuu ka sheegay magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka waxa sidoo kale la weydiiyay in uu markaasi wax shuruudo ku xirayo kulan kasta oo uu la yeesho Mr. Rouhani haddii uu doonayo wuxuu yiri maya wax kulan shuruud lagu xiri karaa ma jiro sidaas haday doonayaan diyaar ayaan u ahay ayuu yiri dawladda dalka Iran durbo kama jawaabin hadalkan iyo waliba bandhigan madaxweyne Trump ayaa inta badan waxa uu san ka gaban waxa uu jecel yahay inuu markaasi uu doono hase yeeshee 22 bishan July uu baahid kolkii uu sheegay in Iran aysan weligeed lahayd aysan ku fakirin inay u caga jugleyso Mareykanka hadii kalena ay masiibo haleeli doonto asagoo ku qoray far waaweyn bartiisa Twitter-ka ayuu sheegay in ay la kulmayaan wuxuu ugu yeeray wax yar oo taariikhda adduunka horay u dhacay oo dhibaato ah oo la markii doono buuri dawladda dalkaasi fadhida Tehran taas ayaa wasiirka arrimaha dibadda Iran wuxuu kaga jawaabay in 1000 sano ka hor iyo ilaa hadda Iran ay dadkeedu aad u diriirsanayeen diriro xun ay soo mareen guud ahaantood ama gebi ahaantood ay jilbaha dhulka ugu dhifteen cid kasta soo weerartay waa sida uu ku tooqay si kastaba ha noqotee madaxweyne Donald Trump hadalkiisan ayaa u eg hadal lamida go'aankii uu horay ugu gaaray inuu qoyga Kuuriya hogaamiyihiisa Kim Jong Un la kulmo waxayna mar kale siyaasadda caalamka dhinaca kale u rogi karta iyadoo dhawaan laga hadlayay ama inuu qaada dhiganay warbixinihii dhinaca markaasi amni darrada ee caalamka ku soo wajahnaa iyo waliba inay labada dal isku hanjabeen kolka ay timid marinka Hormuz oo Iran ku hanjabtay inay xiri doonto dabada qiimaha qaybta dambe iyo tafaasiisha ha moogaanina